Asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada youtube channelkeena waa markale iyo muuqaal cusub. Ramadaan kariim, Ramadaan mubaarak. Maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago Ramadaan routine wixii aan qabtay afurkeyga. Intan waa ay ka badneed laakiin qayb yar oo kamid ah ayaan idin duubay. Ugu hore meeshaan waxaan kusoo jarjaranayaa basal iyo barbarooni. Waxaan rabaa in aan ka sameeyo shawarmo. basasha iyo barbarooniga waxaan rabaa ansalaatadii iyo waxaas bedelkooda inay ii galaan. Kadibna meeshaan waxaan kusoo jarjarayaa chickenka oo chefka ah ayaan meeshaan kusoo jarjarayaa. Asagana si yar yar oo siman oo isla eg ayaan usoo jarjarayaa. chickenkii iyo markaan soo diyaarsado qudaartii inta waxaan soo saartay birta. Waxaan kusoo shubay saliid. Kadibna waxaan kusoo shubayaa chickenkii aan soo jarjaray oo sida yar yar aan usoo jarjaray. Waxaan rabaa inaan si fiican aan u shiilo. Kadibna waxaan kusoo dari doonaa basasha iyo barbarooniga waad arki doontaan. Sidaan usoo noqdo xoogaa yar usoo huuray si fiican uma bislaanin. waayo waxaan rabaa basasha iyo barbarooniga inuu ku bislaado. Kadib xawaajiyaasha kusoo daray. Waxaan ku darayaa maraq digaag iyo barbarooni shiidan bis. Si fiican aan isku dhex gelinayaa si fiican iskugu dhex gasho. Kadibna basasha iyo barbarooniga ayaan kusoo daray. Xoogaa fiican isku karsamaysay. Ugu dambeyn wax yar oo jiis ayaan korka uga soo daray. Jiiska ma badno, wax yar waaye oo aan badnayn. dabka waa aan ka dimay markaa intaan kusoo shubay. waxaan rabaa inuu asila iskiisu hooro jiiska karis marabi soo maahan. Meeshaan aadan waxaan ku fidinayaa wixii aan ka sameyn lahaa shawarmada. waxaa waaye bur iyo waxaan isku daray cusbo keliya. labadaasaan isku daray. xoogaa yaraan sugay. kadibna sidaan ayaan usoo fidiyay. xoogaa qafiif ka dhigo oo waaweyn birta markii aan soo saarayna waxaa waa si fiican igama bislaanin. ayadoo sidaas ayaan ka dejiyay. waayo hadhow waa mar labaad karinayaa. shawarma kariskeedu waa ay fududahay. qof aqoon ma jiro saa qiyaasahay. laakiin ani cuntooyinka aan ugu jeclahay oo gurigeyga zaidka loogu kariyo ayay ka mid tahay. hadda waxaa la gaaray waqtigii aan diyaarin lahaa shawarmada. meeshaan waxaan kusoo diyaarsaday mayonnaise iyo kajab aan isku soo qasay. kadibna waxaan soo marinayaa shawarmada. markii aan saan u mariyo kadib waxaan kusoo darayaa qudaartii ii diyaarsaneed ee aan soo kariyay ee aad aragteen ayaan kusoo shubayaa. intaas kadib markii aan sidaas usoo diyaarsaday birta waxaan soo saaray dabka. markii wax yar soo kulaatana saana hadba dhinac uga gidinayaa shawarmada. markay dhinac kasoo gaduudato haddana dhinac kale u gidinayaa. sidaan ayadana kusoo wada bisleenaa. hadba qayba soo saara. qayb markay bislaato haddana qaybta kale.
hadda qaybtan waxaan rabaa inaan ku kariyo baasto. Suugada yaa rabaa marka hore inaan kariyo, basal aan kusoo shubay, kadibna hilib oon si yaryar usoo jarjaray ayaan kusoo shubay. Xoogaa fiican ay karsamaysay, waa ma duubin badanaa. Maanta waxyaabihii aan qabto badankood maanan duubin. Baradhadii wixii dhan aan kusoo daray, yaanyo shiid aan ku daray, hadda kabsar aan kusoo darayaa. Ilaahay waxaan ka baryaa qof walba oo aan haysanin inuu siiyo, inta haysatana oo Ilaahay u barakeeyo. Ramadaanka fadligiisa iyo ajarkiisa inuu Ilaahay na soo xejiyo. Acmaasha wanaagsan aan samaynayna oo Ilaahay naga aqbalo. Haddii aad muuqaalka inta soo gaarto waan kaaga mahadcelinayaa. Haddaa janaalkayga ku cusubtaan ugu soo biir oo ka mid noqo asxaabtayda. Haddaa hore iila joogtana mahadsanid.